بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت برنامجكينا wuxuu ku saabsan yahay laab. Waa maxay laab? Shaqadiisuna waa maxay? Qofka bartay laabku shaqadiisuna waa maxay? Laab markii la dhaho horta siyaabo kala duwan loo qeexay. Haddii aan fiirino WHO oo kale hadda laabku waxay u qeexday standard ahaan laabku inuu yahay goob ama qol qalab ku jiro agabo kala duwan kuwaas oo lagu baarayo dhiigga noocyadooda kala duwan adig waxyaabo badan sida kaadoo kale saxaradoo kale iyo waxyaabo kale. Marka laab waxa dhihi karnaa waa laf dhabarta caafimaadka. Maxaa yeelay guriga waxaa la dhahaa aabaha yani loogu dambeeyo mar walba aabaha yani booska aabaha uu taagan yahay oo kale laabkan booskaas uu taagan yahay. Dhakhtarka oo kale xitaa 70% wuxuu ku tiirsan yahay laabka. Waayo laabku wuxuu soo sheego uu go'aan ka qaadanaa ama resultiga oo sheybaarka uu mar walba bukaanka uu ma dhakhtarka wuxuu soo diraa sheybaarka. Soo marka sheybaarkii wixii uu soo gudbiyo uu asi go'aan ku qaadanaa. Markaas waxay cadeynaa inuu yahay laf dhabarta caafimaadka. Laboratory-ga marka yaa bara karo kale. Laboratory waxaa bara karo qof dugsi sare dhameeyo kale haddana aad ugu fiican biochemistry oo kale math oo kale iyo physics-ka maadooyinka xisaabaadka sidoo kale biology soo daraayadana oo aad ugu fiican bara karo sidoo kale akhlaaqdan ku fiican yani ma ka baxsan ma ahan kaliya maadooyinka waxaan bara karo qof akhlaaq leh yani kalsooni resultiga inuusan يعني waxyaabo badan oo la kulmaamo bukaanada dhiigooda in resultiga uu yani uu xafidi karo sirtaato yani mar walba iyo bukaanka caafimaadkiisa inuu aad u ilaaliyo yani naqanaysa. Marka qofka laabka barto kale yani muxuu ka shaqeyn karaa sidoo uu shaqeynaa wuxuu ka shaqeyn karaa xarun walba oo caafimaad ah haday ahaalayntay adoo kale ka shaqeyn karaa hadii kale isbitaal caadi ka shaqeyn karaa ama isaga meel furo kale xitaa oo sheybaar soo fadhiisan karaa heer asi loo shaqeeyo la gaari karaa xitaa markuu dhiig baaro kadib waxa loo baari karaa meesha kale in la baaro dhiigga noocyadooda kala duwan oo bukaanka oo kale in la ogaado kale sidoo kale wuxuu baari karaa oo kale goryaanada iyo waxaas dadka wareeriyo oo kale in yani uu ogaado kale sidoo kale dhiigga noocyadooda kala duwan oo ogaa karaa sidoo kale taranka oo kale ragga iyo dumarka oo kale dhisidooda oo kale yani waxyaabo badan u baari karaa intaan lagu soo koobi karin. marka takhasuska oo kale markii la dhahana qofka laabku wuxuu ku takhasusi karaa tusaale takhasuska oo kale certificate oo kale hal sano haduu barto oo kale sheybaarka hal sano baran karaa wuxuu noqonaa assistant laboratory oo noqonaa mid oo sheybaarka la shaqeeyo kale oo noqon karaa qofka hal sano markuu soo barto kale hadii kale 2 sano baran karaa oo ah diplome wuxuu noqonaa lab technician oo noqon karaa 4 sano baran karaa 4 sano waa laboratory technology waaye sidoo kale 3 sano baran karaa xitaa oo 3 sano yani master uu ku darsan karaa masterkan waxa waa lab scientist oo noqon karaa sidoo kale PhD xitaa qaadan karaa wuxuuna noqonaa chief lab scientist oo noqon karaa. marka laabku waa wax aad u muhiimsan waana laf dhabarta caafimaadka. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.